Jubbaland ayaa qoraal ay ka soo saartay xaaladda gobolka Gada ku sheegtay in markan ay diyaar u tahay inay istifaacdo iyada oo ku eedeysay madaxweyne Farmaajo iyo Niisa inay colaad ka horinayaan gobolka. dowlad goboleedka Jubbaland waxay aad uga xun tahay xaaladda murugsan ee muddada dheer ka jirtay gobolka Gado, taasoo cadaynaysa in madaxweynaha Soomaaliya iyo hay'adda nabad sugidda oo isticmaalaya magaca qaranka Soomaaliyeed iyo hantida ummadda Soomaaliyeed inay colaad kaga abuureen gobolka Gado ee dowlad goboleedka Jubbaland. arrintaas oo muddo sanad ah taagneed ayaa lagu yiri qoraalka. Jubbaland ayaa sheegtay in dowladda federaalka ay iska indha tirtay go'aano isjaba joog ah oo ay beesha caalamka ka soo saareen oo loogu baaqayay inay qaboojiyaan xiisadda gobolka. waxay intaas ku dartay intaa beddelkeed ay dowladda ciidan hor ku daabushay gobolka. waxaa nasiib darro ah in maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka hub iyo ciidan kusii daabulayeen gobolka Gado, taasoo ujeedadooduna tahay inay dadka deegaanka ka dhex abuuraan dhibaatooyin iyo dagaalo sokeeye ayaa lagu yiri qoraalka. dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo xeerinaysa qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed mas'uulna ka ah amniga gudaha deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland, waxay ummadda Soomaaliyeed u cadaynaysaa in cid kasta oo khalkhal iyo deganaansho la'aan ka abuuraysa deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland si midaysan ay isaga difaacayso iyadoo kaashanaysa shacabkeeda, ayay tiri Jubbaland oo sheegtay in cawaaqib xumada ka dhalata xaaladaas ay mas'uuliyaddeeda dusha ka saaran tahay madaxweynaha dowladda federaalka ee waqtigiisu dhammaadka yahay.